السلام عليكم داوديال إذا لحن بهم يلبون غدا ونسان قلبنا أحسن 6 جولاي لبده كل سنة تبنك قضبة وركنا عن قلبتها وين وحكم الأمن مدحونها صوماليا بدل محمد عبد الله فرماجو أيام أن تعب المرين كدوسية قبل مناسبة حسك مالمها حرية دلحي لباتنكي جون يكودا لوليو إيران أفرطان مهاجرين كان سوجيدو قرارها دلالك أفريقيا ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 80 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay xal madaafiic lagu garaacay xaray ku jireen ay ku taalo duleedka dalkaasi Liibiya ee magaalada Tripoli. Araku waysan video ayaa xali xaafad ka tirsan degmada wadajir gobolka Banaadir waxay ku dileen gudoomiyihii maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Saciid Umar Xasan. Somaliland ayaa si adag uga hadashay warqad cabasho ah dawladda federaalka Soomaaliya u gudbisay dawladda Kenya taasoo ku aadan fariin qoraaleed ay soo dhigtay barteeda Twitterka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Kenya ay ku sheegayso in Somaliland ay tahay dal gaar ah. Maydka Maxamed bin Sultan Al Qasimi ayaa la sheegay in laga helay suuliga hooygiisa ku yaalo koonfurta magaalada London. Qodobadaasi qodobo kale oo xasaasi ah ayaan idinku haynaa u diyaar garooba warkii oo dhameystiran. markale daawadayaal isku soo noqod haboon aan ku bilaawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada abaalmarino ku guddoonsiiyay guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda uguna mahadceliyay shaqada hufan ay qabteen madaxweyne Farmaajo ayaa guddiga bogaadiyay abaabulka xoogan ay haatan sameeyeen isagoo haatan ku amaanay dadaalka ay muujiyeen sida haatanba mas'uuliyadda iskaga saareen qabanqaabada iyo maalmaha dabcan xorriyadda qaranka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in maalmaha xorriyadda ay yihiin astaanta qaranka mudan in la weyneeyo si loo xoojiyo wadajirka bulshada iyo ubadka Soomaaliyeed lagu barbaariyo wadaniyad iyo dal jacayl madaxweyne Farmaajo ayaa guddiga ku booriyay inay haatan dejiyaan qorshaha xuska maalmaha xorriyadda ee sanadka soo socdo maadaama ay ku beegan tahay oo yiri 60 guuradii markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay gumeystaha madaxweynaha ayaa xubnaha guddiga qabanqaabadaasi maalmaha xorriyadda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay sida wanaagsan iyo dal iyo dibadba ay ugu qayb qaateen maalmaha xorriyadda dalka haatan Liibiya ugu Iiraan 40 qofood muhaajiriin ah kana soo jeedo qaar kamid ah dalalka Afrika ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen ku dhawaad 80 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii xali madaafiic lagu garaacay xere ay ku jireen ku taalo duleedka magaalada Tripoli ee dalka Liibiya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya ayaa sheegay in tirada dhimashada dadkaasi la laayay xeradaasi degmada Tachora ee baranka caasimadda Liibiya intaasi ay ka badan karto waxaana intaasi raaciyay in hadda ay shaqaalaha gargaar degdeg ah ay wali daad guranayaan midadka iyo dhaawacyada bayaan ka soo baxay dawladda beesha caalamka ay qoonsan tahay ee Liibiya ayaa ku cambaaraysay wararkani war-saxaafadeed ay lagu sheegay in wararkani uu ka dambeeyo ciidamada uu hogaamiyo General Khalifa muhaajiriintani oo dhamaantood baaha in ay gaaraan qaaradda Yurub nolol cusubna ay ka sameystaan ayaa riyadoodii ku soo afjarantay in la xasuuqo wali ma aysan soo bixin faahfaahino ku saabsan dalkaasi Liibiya cid dabcan muhaajiriintaasi dhibaatada u geysatay ma jirto ilaa iyo iimanka sheegata mas'uuliyadaasi wararkaasi lagu qaaday xarunta lagu hayo dadka muhaajiriinta ah Liibiya waxaana wararkani uu muujinayaa baaxadda dhibaatada ay ka dhalatay dagaalkaasi ka socdo magaalada Tripoli haatan Muqdisho arag ku baysan midiyo ayaa xaafad ka tirsan degmada wadajir gobolka Banaadir waxay ku jireen gudoomiyihii maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Saciid Umar Xasan goob joogyaal ayaa sheegay in gudoomiyaha ay soo wareen 2 nin oo ku hubaysan midiyo isigana anaha ka hor inta ay midida lagu dhufan uu dhaawacay mid kamid ah raggii wararkaasi ku soo qaaday oo ku furan rasaas uu ku riday bistoolad uu ku hubaysnaa gudoomiyaha wararka ayaa in sheegay in gudoomiye Saciid iyo mid kamid ah labadii nin ku hubaysnaa midida dhaawaca ay soo wada gaaray ay halkaasi ku wada geeriyoodeen halka ninka kalena labaad uu baxsaday sida ay sheegtay mas'uuliyad ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha iyo labada nin ku hubaysnaa ayaa la sheegay in ay murmeen weerarka ka hor lamana ogo in ay aqoon isku lahaayeen ama aqoon ay ka dhaxaysay xaqiiqda salka ku hayso dhacdadani sidoo kale waxa xali kooxaha bistooladaha ku hubaysan ay tuulada lagu magacaabo Sagaalaad ee hoosta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku dileen oday caan ka ah tuuladaasi lagu magacaabo jiray Xasan Yuusuf Bani
weerarkani ayaa ka dhacay afafka hore ee guriga iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in marxuumka uu mar gudoomiye kasoo noqday tuulada sagaalaad ee lagu dilay lamana ogo sababta loo dilay iyo cidda ka dambayso inkastoo aysan jirin weli cid sheegatay dilkani haddana waxaa haatan la aaminsan yahay in ay fulisay kooxda al-shabaab laguna bartay dilka noocan oo kale ah ee qaarijinta ah. haatan Somaliland ayaa si adag ugu jawaabtay warqad cabasho ah ee haatan dowladda federaalka Soomaaliya u gudbisay Kenya taas oo ay ku aadneed fariin qoraaleed ay soo dhigtay barteeda Twitterka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Kenya. Somaliland ay ku sheegtay dal gaar ah warsafadeedkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya maalintii Isniinta ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya u gudbisay Kenya warqad cabasho ah ay ku aadan qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Kenya ee soo dhigtay barteeda Twitterka. Xukuumadda Somaliland ayaa iyaduna warsafadeed ay kaga jawaabayso cabashadaasi dowladda Soomaaliya u gudbisay Kenya ayaa ku sheegtay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan awoodna u leh in uu xiriir la sameeyo dalalka caalamka. Warsafadeedkani ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in Somaliland 30 sano ay haatan bala soo dhaafay ay ku naaloonaysay dowlad wanaag iyo isla markaana ay ahayd dal madax bannaan wadamada ee caalamka iyo wadamada jaarkana ay la wadaagaysay walaalnimo iyo dabcan diris wanaag. warsafadeedkani ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in talaabooyinka Soomaaliya ay waxyeelanayso iskaashiga goboleedkaasi dalka Geeska Afrika ay u helan in ay wax wada qabsadaan. Wasaaradda ayaa warsafadeedkeedii waxa lagu baaqay in Soomaaliya ay wax ka qabato caqabadaha ay ka haystaan dhinaca horumarka iyo nabadgelyada iyo bini'aadanimada ka jirto gudaha intii ay fargelin lahayd dalalka madax bannaan ee ka mid Kenya iyo Somaliland. warsafadeedkani ayaa waxaa lagu yiri dowladda Somaliland waxay cadeynaysaa inay ka xun tahay talaabada ka baxsan diblomaasiyadda ay qaaday Soomaaliya taas oo ay faragelinayso xiriirka dowladda Somaliland iyo Kenya. London maydka Maxamed bin Suldaan al-Qaasimi ayaa la sheegay in laga helay suuliga hoygiisa ku yaalo koonfurta magaalada London. ninkani oo ah 39 jir ayaa waxaa dhalay amiirka Imaaraadka Sharqi ee dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta ah isagoo ahaa milkiilaha rugta naqshadaynta libiska ee Kasami Fashion. maydkani ayaa waxaa shalay laga dhex helay suuliga qubayska dhismaha uu ka degnaa iyadoona ay hareerihiisii ay daasanayeen cirbadaha la iskugu daro ay tahay ama daroogada uu ugu xirnaa gacantiisa. waxayna booliiska sheegeen in jirkiisa laga helay daroogo xad dhaaf ah sida uu loo badanayo sababta uu keentay inuu geeriyooday. wargeyska ka soo baxay Ingiriiska ee magaciisa lagu sheegay The Sun ee London ayaa qoray wiilkani inuu habeenkii ka yimid baar lagu duntay ku yaalo magaalada London uuna halkaasi ku gaaray xilli dambe isagoo isticmaalaya khamri fara badan iyo daroogo xad dhaaf ah. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhigtay calanka dalkaasi iyadoo lagu dhawaaqay baroordiiq 3 cisho ah waxaana la xaqiijiyay in wiilkani hadda geeriyooday walaalkii ka yaraa uu 10 sano ka hor u geeriyooday arrimo la xiriiro darooga uu isticmaalay. waxaa inta noogu ilaaday wararkii u dambeeyay amuraha Soomaaliya iyo caalamka. wararka lamada intaan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.